كلاتي وناكسنا أصحابي مالك الصوت نقدا ورسان وبرنامج كيني سدحات وبرنامج هبين نمو السبدية أو أحدي أي سوق ليسو لما البرنامج كقضبدي سوحي نقول دوران ورركا سوكر لي دقالكا حوق له كسعودة قبلكا بريق النحي هذا وحي نكب الله بينا أرين عجيبة برنامجك نيكي ترامها أيا وحول برنيك الوايدي شيء مرورين gaariga matoorkiisa ooliyada iyo biyihiiyo isku daray ma maqli jirtay waa fariistay oo ma kacayo odagii marka ooliyadii iyo biyihiiyo isku daray maskaxdii caadi ma ah soo u hanjabaayay maalmihii hore annaga wadayna baabuurta annaga saas ay maartay maraakiibta annaga gudbinayna ma Iiraan waa baabi'inay dhulka la sinay kana samaynay waa soo afjarnay awoodoodii cirkaasa ay maraysa dhulkan dhignay waxa soo lahaa soo moogidin hajabaad annaga marsiinayna annaga diyaar soo lahaa aawa waxay ka mareen Chinese iyo dawladihii kale ee danta ka lahaa wadadan oo shidaalka ka qaadanayay dawladaha khaliijka kaalaya nagala qayb qaat sidii aan u furi lahayn marinka Hormuz ayb hadii loo dhimana Trump iyo Netanyahu iyo ayaa mar hore u galban lahaa odagii waa wareeray sheekadii ka tambadisay waxa uu dhaxgalay waxaan caadi ahayn uu dhaxgalay haddaba aan idin soo telefishinka Al Jazeera oo warbixin ka qoray wuxuu leeyahay dagaalka Iiraan ayaa soconaya ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay rideen caawa mawjadii kontonaad ee isxigxigtay weeraradii ay qaadayeen laakiin warka xiiso leh waxa waaye Trump wuxuu ka dalbaday in faragelin caalami ah lagu sameeyo furitaanka marin biyoodka Hormuz تدخل عالمي لو باهي فرقلين عالمي وربع عليك ويل هذيك انا ادون كان ugu awood badan sootaa lahayd cid ila hadli karta soo maray sootaa lahayd kibir sanayd maxaa dhacay Iiraan kaligeeda wada xirtay waa furi laadahay hadii Ruush iyo Chinese iyo isfara saartaan maxaa yaala sheekadii waa waalatay ninkii wuxuu taagan yahay hadda dawladihii caalamku ha ka qayb qaataan way haddaba marka waxa uu jawaabay oo waliba ku raaxaystay ku maadeystay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi kala yiraahdo haddaba aan idin soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay Araghchi wuxuu yiri Mareykanka waxay bariyayaan kuwa kale ilaa Shiinaha way bariyayaan si ay markaa loo ilaaliyo marin biyoodka Hormuz wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi waxa uu sheegay Mareykanku inay ka marayso inuu dawlada kale soo bariyo oo Shiinaha ay ku jiraan si loogu kaalmeeyo in markaa la ilaaliyo mudayiq Hormuz ama marin biyoodka Hormuz waxaas waa ceeb u dhahay ninkii weynaa ma halkaas ka maraysaa u leeyahay odagii ma dadka inuu barbariye ka mare kaalaya iraaca meeshan aan furno shiinayso dan soo kamalihi waa ka xumaayule ya isfooteena Iiraan isfootay taagtay odagii ma wala laga dabagay tabartiisa iyo iswaalkiisa iyo adduunyadan halkan ku bood cid walba waa soo afjaraya ninkii madaxweynaha Maduro qolkiisan ugu galay waa soo qabtay yaa hor istaagi kara adeero waxa la yiri qababacda inta iska dhaaftid wadadan ma mari kartaa dawladda adduunka ugu xoog badan ma tahay jidkan ma soo mari kartaa hadda waxay ka mareen halkaas waxaaba ka sii daray marka war kale oo Al Jazeera ay qorayso mid kamida la taliyaashiisa sare waxa la yiraahdaa taytalka la taliyaha aqalka cad waa qof weyn la taliyaha amniga la taliyaha dhinaca dhaqaalaha la taliyaashu waxay joogan darajo sare ka joogan Mareykanka mid kamida la taliyaasha wuxuu leeyahay warnimayo aan ka cararna meeshan intay goor tahay kula waana official waraysiyo bixinaya nimanku inay jabeen markaas u qiray aniga nimanka macnawiyan moral ahaan ay u jabeen
awood ahaanna waa u baaba'say waxaa lagu leeyahay 200 oo diyaaradood oo maaragtay hub wada ayaa tagaal yiri toddobaadkii oo ciidamada Mareykanka iyo waxa kale hub u geynay hubkii waa lagu sii wadaa bakaaradii hubka iyo gantaalihii waa faaruqeen dalalkii carabta gantaalihii ay wax isaga difaacayeen oo lacagaha malaayiinta looga qaatay waxna waa tari waayeen xoogoodina daroodisay ku baabi'iyeen iyo wixii ay ridi karaan Sacuudiga waa gabaabsi gantaala ma haystaan difaaca qatar waa saas imaaraadka iska badaa Bahrain waa saas Kuwait waa saas kulligood caawa ugu dambeysay midaan la dayn male kulligood waxay leeyihiin gantaala ka hortagnay diyaaradaha ka hortagnay ku hayaan marka sheekada la yaab kale aanay tusoo caawa soo korortay telefishinka Al Jazeera wuxuu yiri la taliyaasha sare mid ka mid ah Trump wuxuu dalbanayaa in la helo way looga baxo dagaalka oo lagu cararo haddaba wuxuu sheegay haddii arikaa aan la samayn wuxuu ka digayaa natiijo kaarisiya ah inay dhacayso oo natiijo oo aan wax wanaagsan ahayn inay halkaa ka soo bixi karaan haddaba la taliyaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu sheegay in markaa Mareykanka ay tahay inay ku dhawaaqaan guul kadibna ay ka baxsadaan dagaalka Iran haddaba waxay ku tilmaantay Al Jazeera mowqif naadir ah shakhsi caan ah oo xilka noocaas haya oo Trump u dhow inuu maanta ku hadlo arikaas la taliyahan magaciisa waxa la yiraahdaa David Sachs waxaana uu ka mid yahay la taliyaasha sare ee aqalka cad ee dalka Mareykanka David Sachs la yiraahdaa ninkan waa nin la taliya ورنوي طلب يد السياوي قول انت كل واغنو انا اعرن يا كاغر سرع ادوك مع مودي فيلمات هوليوود كبريكا كلو سباي ما ادويده مودي ادوك ما فيلنا دغالك ماشي كسوده روايد ميا بين ميا تدريبات ميا معناها دوله تصمي لتري ما كسوده باش كلها ماشي سو استاغينا waxaan dheena dagaalkii waa ku guulaysanay macna iclaan nasri yalada nasri iyo guushi anaga qaadanay waa guulaysanaa dheena fagatax waa arrayna kula makhraj raasanayna meelan ka baxno hal mar xaluulano ka baxno kula meeshan hadii kale wuxuu yiri kaarisiya dhays kaarisiya afcarabi waxa musiibada weyn markay meel qola qabsato musiiba naga qabsato doonto dagaalkaas ninkana waa nin culus oo kamida ragga aadka ugu dhow la taliyaashiisa kamida isla jabkoodii aan ku jirnaa moogtay sheekada aanu ku jirno waxay tahay jabkii aan ku jirnaa CNN ayaa warbixin isla qoray haddaba aan idin soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay soo xiganaysaa telefishinka CNN oo isaguna qoray weerarka Mareykanka uu ku qaaday Iran waxaa ka dhalato yiri natiijo bil cagsi ah wixii la filayay aan ahayn bil cagsiga sidiisaba waxa waaye halkan iyo wax ka soo horjeedo waaye macnaha in wadaadka markii la dilo oo maaragtay madaxda sare amniga iyo laga takhaluso wadanka dhan uu gacmaha taagi doono ruwaayadaas ay ahayd filinka oo meesha yaala laakiin muxuu leeyahay bil cagsigeedii yaa dhacay waaba wadaadka intuu joogaaba la roonaayo wadaadka markuu joogay aaba la fiicnaa wadaadka wuxuu ka celcelinayay nimankan wuxuu lahaa dawladaha dariska ilaaliya carabta ha ku degdeginina wadaadka intuu joogay wax badan ma dhicin dagaalkii 12 maalmood ogaada qadar kaliya beeskeeda la weeraray meel kale lama weerarin wadaadkii fakta hore ma la dilay meeshan dagaalka bilowgiisii wadaadka ma la dilay yaa wax isweydiina niman mintida meesha inta qabsadeen ee meel walba xaskuliya marka hadda waxa uu yiri CNN-ka wuxuu leeyahay bil cagsigeedii dhacay Trump marka madaxa waash wixii loo akhrinayo waxaan wax fudud inay yihiin 2 ilaa 3 maalin markay u badato 4 maalmood lagu soo afjarayo Iran dhan gacmaha taagayso ciidanka aad haysato fiiri maraakiibta diyaaradaha xambaara markay soconayaan intaas oo diyaaradood ka kacayso waxa dhinacyada marka hadda ayaga waxay leeyihiin la taliyihiisii meediyihiisii waxay meesha waxaan filaynaa ka soo bax markaas waxa xisaabta marka ku soo baxaysa nimanku inay jabeen ha ka shakin
هكا شكنين إنه ماشا كتشبي أنت هرتينها أوسي جبي دور هدو نية جبيبا وأنا لقراعي ولا حسكولي برامج كان كي كوري قلبت أنت فيرستوين فيرسدين محيل هذين عيدا كيلالاد كعان كيران مركب كي أقوينا وعيسانينا دين بدا ونقعر خدمتي أما الشقدي وقبنا ينا وقبي نكتا كسارنا دهد موجودة مركب ماشا هوشا ساكا سعوتا حالدي أضيي ترى محاي كوحديس هالكاسي مريان نكي نتنياهو أهانا ورركيسي والله يسلدح مريا ولا لايه وحلي نكي منولي هاي مدنتي حقو كبحي آوي وررك للدوانا سعودة إلى هذا مركا wax rasmiyana lama hayo laakiin wararkaas way yaacayaan social media iyo rag waaweyn oo shaki ka qaba arintan iyo waxba soo qoraya odayga waa dhintay ama waa dhaawacmaan leh waxa oo badan marka iyaguna halka ka socda ragga waaweyn ayaa iyaguna Israa'iiliinta dhibaato ka soo gaartay leh wali laakiin way qarsanayaan cid si rasmi ah u sheegtay ma jiraan oo macnaha warbaahinta rasmiga markay sheegayso waa inay cadeymo iyo xogo muhiim ah ay haysato waxa kaliya oo soo baxay caawa waxa leeyahay Netanyahu wuxuu la hadlay Zelensky madaxweynaha Ukraine warniyo iga soo gaaro yiri droneskan waxa isaga dhiciyay ikan adiga ugu roonaalay waxa droonka Iran iska celin karay oo Ruushka markay soo siiyeen waa la dirirtay ee droneskan oo kula dirirtay waxa ikan uu yiri marka sheekada halkaas ay maraysaa haddaba qaybtan ugu dambaysa waxaynu ku dulmari doonaa wararka goosgooska ee soo dhacay tan iyo intaynu barnaamijka ku jirnay haddaba waxaynu ku bilaabaynaa intaan barnaamijka ku jirnay ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay soo saareen war cusub oo ay leeyihiin mawjad kale oo konton iyo koobaad ah ayaa bilaabatay oo markaa lagu beegsanayo saldhiga leedaado al-Kharaj oo markaa lagu weeraray iyadoo la isticmaalayo sawaariiq waxaana la sheegay in markaa sawaariiqdanu ay yihiin kuwo halis badan oo markaa iyagu ku shaqeeya shidaal Sacuudiguna waxay sheegeen inay ka hortageen diyaarado drones ah oo markaa dalkeeda lagu soo weeraray waxay sheegeen inay ka hortageen oo ay burburiyeen haddaba imaaradda Fujairah la yiraahdo ee imaaraadka waxa la sheegay in dab xoog leh uu ka kacay goob warshad dhinaca batroolka sifaysa ah markii la sheegay in ay gaareen firirka gantaalo lagu weeraray imaaraadka caawa inay gaareen dhanka kale Hezbollah iyaduna waxay sheegtay inay markaa duqaysay deegaanka la yiraahdo Kafar Kala iyo Deeshon haddaba markaa wararkaas ayaa ugu waaweynaa wixii soo dhacay tan iyo intaynu barnaamijka ku jirnay wixii soo kordha waa isla eegi doonaa shakiyu ka galin odagii waa ku deynayaa waa jabeen marka sida hadda laga akhriyay warbaahinta cadeymihii ay keeneen la taliyihiisii iyo wixii oo dhan waxay